gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta soo booqday aqalka dowladda hoose Xamar halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka. Soo dhaweynta kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho waxa uu fadhiistay xafiiska aqalka dowladda hoose Xamar isagoo halkaas ku xog wareystay gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale xogayaha guud ee maamulka gobolka. xog wareysigaasi oo ku saabsanaa sida ay u socoto shaqooyin kala duwan oo maamulka gobolka Banaadir iyo howlwadeenadiisa u qabto shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Muqdisho. xog wareysigaasi kadib ayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir waxa uu kormeer ku sameeyay xafiisyada kala duwan ee ay ku howlgalaan gudoomiye ku-xigeenada iyo xogayaha guud iyo sidoo kale xafiisyada agaasimo waaxidyada isagoo kula dardaarmay madaxda gobolka Banaadir iyo dowladda hoose Xamar in ay dardargeliyaan adeegyada kala duwan ee lagu khidmeynaya shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan 17 degmo ee gobolka Banaadir. intaa kadib ayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir waxa uu booqday xarunta dadegista ee dowladda hoose Xamar halkaas uu kula kulmay agaasimaha waaxdaasi waxaana uu ka dhageystay warbixino quseeya sida ay u shaqeyso waaxdani. xilliga uu booqanayay gudoomiyaha xarunta dadegista ayaa lagu khidmeynayay boqolaal ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho kuwaasi oo loo sameynayay warqadda dhalashada iyo sugnaanta ee dowladda hoose Xamar. intaa kadib ayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu booqday waaxda dacwadaha dhulka dowladda hoose Xamar isagoo sidoo kale xog wareystay mas'uuliyiinta waaxdaasi. waxa uu kula dardaarmay in si hufan oo cadaalad ay ku jirto loogu khidmeeyo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan 17 degmo ee gobolka Banaadir. ugu dambeyn duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish ayaa booqday xafiiska taliska ciidanka ilaalinta deegaanka ee dowladda hoose Xamar waxaana uu halkaas kula kulmay saraakiisha taliska isagoo kula dardaarmay in ay labalaabaan kobcinta dhaqaalaha si loo xoojiyo mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinaya caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Muqdisho isla markaana ay magaaladu ay la mid noqoto magaalooyinka dhigeeda ee hormaray. gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Ibraahim Cumar Mahadalla Ibraahim Dheere waxa uu ka warbixiyay kormeerka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. gudoomiye ku soo dhawow aqalka dowladda hoose waxaa ku diyaara gudoonkii ugu sareeyay iyo shaqaalihii gobolka waxaan kugu soo dhaweynaynaa si niyad ah inaad timaado soo booqato ka howlgasho kula shaqeeyno aqalka dowladda hoose runtii shaqaalaha iyo maamuuskii soo dhaweyntaada intaba waxaan leenahay diyaar waxaan ka sugaynaa inaad noo timaado oo shaqada xafiiskaada aad ku soo dhawaato annagana aan kula garab galno oo aan kula shaqeyno. runtii maanta oo taabisha 29 Agosto waa maalin ugu weyn oo gudoomiyaha cusba oo soo magacaabay lagu soo booqday gudoomiye soo dhawow. gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo dhankiisa goobta ka hadlay waxa uu tilmaamay in maamulkiisa cusub ay ka go'an tahay horumarinta adeegyada kala duwan ee asaasiga ee lagu horumarinaya baahida bulshada iyo sidoo kale in mashaariic muhiim ah laga fuliyo magaalada Muqdisho. maantay waxa aan soo booqday xafiiska xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho waxa halka igu soo dhaweeyay maamulka sare ee gobolka Banaadir qaybihiisa kala duwan xarunta qaybaheeda kala duwan ayaan soo booqday. haddana haddii alla idmo waxaan tegi doonaa qaybaha kale ee hoos yimaada maamulka gobolka Banaadir. wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.